السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيكدني أدقو دافتي بلايتينكا عندورو وقيبتي ستيدات شيكدو waxay noo joogtay xaaji mooge iyo magan iyo agaasimihii wasaaradda waxbarashada iyo maamulihii dugsiga markii uu xaaji mooge yidhi saddexdiinaba macsuun ayaa liitiin marka intaasi dhacday xaaji mooge xaggii magan buu jeedsaday wuxuu yidhi adigu kolley dee inaad qalootid nin dhalinyara ayaa tao yaanad naga qaloole saaxiibkaas oo kaxayso maganna wuxuu yidhi kolley qofii ku qaaliya ayaan soo kaxaysan doonaa lagu kala teg sidaa xaaji mooge xaggii ku noqoy gurigiisii si uu qabanqaabyada macsuumadaasi kolka hooyo bilan iyo shaqaalihii guriga joogay uga wargeliyo timeka uu qabtay waxa weeyaan waa xilliga tijaartu qadeeyaan dadka tijaartii hadigood dee foqooraha unbaa 12 iyo meelaha kawdiyo qadeeye tijaartu waa 4 ilaa 5 ayaa la qadeeyaa kolkaa xaaji mooge wuxuu tegay gurigii si ugu wargeliyo kolkaa staafkii guriga ka shaqaynayay dabaakintii ha noqdaan mudalabiintii ha noqdaan kuwii kale serviska qabanayay waxyaalaha loo baahnaa ha noqdaan iyo hooyo bilan oo kolkaa agaasimkii guud ee dee howlaha guriga ah ala iyagu dadka tijaartii hadi goor iyagu maaha hadday qadaba dee samaysanayaan kuwo sida dadka danyarta ah subaxa sariimada ku kalahaa maaha iyagu tijaartu wixii ay u baahnaayeen suuqa markaa kasoo iibsada iyaga tijaartu waxa weeyaan wax la yidhaahdo waxaa la sameeyaa wiigiiba hal mar ayaa la sameeyaa waxa la soo iibsanayo waxaanay ugu yeedhaan shopping bay yidhahaan shopping kolkaa talaajado waaweyn oo kolkaa guryaha ay galaan ee qasriyada ah madbaxyadooda ku kala baahsan ayaa kolkaa cuntada la dhigaa hilibka wiigii ayaa 2 neef amba 3 neef loo qalaa oo kolkaa iyagana hilibka lagu guraa talaajadaha guryahooga hadi goor waa casuumad maalin kastaba kolkii xaaji mooge ka dhaqaaqay ee uu tegay xaggii hawlihiisii iyo gurigiisii si uu wargeliyo ayuu maamulihii dugsiga iyo magan intaanu ka kicin waxay wargeliyeen in wiig uu ku soo ambabaxo dabadeed wiig wixii ka dambeeyana uu foontriga ka bilaabi doono kolkaa dugsiga soos oo halkaasi joogi doono muddo sanada sanadka waxbarashada waa boarding school jief iyo hortaba way leedahay dugsiga sheekh waa dugsi librariyadii leh oo wax akhriskii leh oo library aqoontii taalo kolkaas sidaas aad yeeli doontaa baa la yidhi iminkana kolley kol haddaa casuumad laynooga yeedhay maanta saaka horta xiisadaha
kale waxba ha gelin agaasimiye waxbarashada ayaa yidhi anaa ku qaadaya kolkaa kolley labiskaaga iyaysa soo diyaaray adagii cidda ku raacasaba gaariga kolkaa laankuruusalkaa buu agaasimkii waxbarashadu kolkaa ku qaaday magan kolkaa waxay baadi dooneen qofka ku qaaliga uu sheegayo waa adeerkii xaadxaadhato laysil agaasimkii waxbarashaduna goob bay u cayimeen oo xilliga lasoo qaado casuumadda la tegayo goobtaasi ayaa laga qaadi doonaa dabadeed iswaraysteen adeerkii xaadxaadhato iyo magan kolkaasi magan casuumaddaada adeeday raacaysaa kaama maarmayo maxaad hore igu soo sheegi weyday buu yidhi bal labisye iyo waxaynu dhar doondoonanay dee xaalkeena waad aragtaano dee xitaa meelahaasan dayn adigana isku joog amba safaariya amba suugta aynu daymaysan lahayn aniguna waxyar baan khamiista ayaan kolley bal ka eegan lahaa howdheydhka walow aan haysta buu yidhi anigu suud guriga iga yaalo suudkaasi mid ku iibsaday qarni wakti hore waxba de anigaba waa laygu kadiyey buu yidhi adeer oo kadis bay wuxuba iga noqdeen kolkaa bal waxaynu bilaabi doonaa xaadxaadhato oo magan adeerkiya waa cabdi cabsiye iyo cumar cabsiye waa walaalo ayaynu kolkaa backgroundkeena ayaynu mari doonaa bal waxa uu magan ku doortay run ahaantii kolkaa cabdi xaadxaadhato iyo cumar dhuxolle waa laba nin oo walaalaa hooyo iyo isku aabaa cumar ayaa ka weyn xaadxaadhatona wuu ku xigay xagga waxbarashada waxay ka galeen dugsigii waxbarashada riis gabiley waqtiyadii meelaha 54 secondary iskoolkoogiina iyo kii dhaxana waxay ku dhammaysteen dugsigii sheekh waa ilaadaha dadkii ka baxay secondary schoolka 1900 iyo meelaha 69kii markii ay dugsiga waxbarashada ay ka baxeen magan isagu cumar baan ujeedaa cumar cabsiye oo magan aabihii ah isagu wuxuu ahaa ardaydii loo qaatay kolkaas shaqaalaha dowladda waxaanu kolkaa shaqo fiican ka helay wasaaraddii kolkaa beeraha run ahaantii isagoo kolkaa wasaaraddana ka shaqeeya ayuu haddana dhinacana jaamacaddii beeraha ka dhiganayay kolkii dambena wuxuu ahaa agaasimayaashii mashruucii la oran jiray mareedley ee sonkorta cabdi xaadhato kelmaddan cabdi xaadhato waxay ugu baxday isagu wasaaraddan intii waktigii dambe ee adduunyada isbedeshay ayuu had iyo goor u lahaa haysweyn xaadhatay kolkaa xaadhato waxa weeya waa wasaaradda cabdi xaadhato isagu markaa ay secondariga ka baxeen ardaydii nasiibka u helay buu ahaa in kolkaa loo diro jaamacad Detroit Michigan ku taala oo dalka Maraykanka ah laakiin koortii dambe ee Maraykan tegay noqotay in kolkii dambe la yidhaahdo departmentka New York
ee kolkaa jaamacadda layla Columbia Heights ayaad ku qoran tahay oo isbedelay foomkiisii wuxuu ahaa kolkaa wan cabdi xaali xaarato ilbaxa waxa weeyaan waa aqoon-yahan laakiin waktigan maanta kolkaa intii burburkii u dhacayba waa dadkii kolkaa shaqooyinkii iyo aqoontii mihnadahay oo lahaayeen oo dhan ay dumeen waxay nolol maalmeed kolkaa ka dhigtaan beerta isaga iyo walaalkii cumar dhuxul leh laba beerood isku garab degan oo aabahooda uga dhintay cabsiye iyo dhuxulaysato isna waa dhuxulaysato caadhaadhato run ahaantii kolkaa noloshan dambe cusub ayay ku jiraan laakiin iyagu habi ay goor kastaba cumar iyo haddii ay noqoto xaadhaadhato magan waxbarashadiisa aqoontiisa noqotay inuu genius ka noqdo ardayga plus a uu noqdona waxa ka dambeeyey waa adeerkii xaadhaadhato iyo cumar oo labaduba sida aqoontoodu cilmiga haddii ay noqoto scientifical iyo two linguist ah ay dhisan yihiin oo carabiga iyo englishka xaadhato iyo cumar dhuxul leh waa influent laakiin waxa u dheertaasi cabdi xaadhato isaguna inuu koorasyo badan oo faransiisa u qaatay oo luqadda faransiiskana uu ku yahay baaxuuri kolkaa waa dadka luuqadaha badan ee dee aqoon ahaana sidaa u dhisan shaqo ahaana sidaa u dhisan kolkaa waxaynu eegi doonaa halkan gurigii yaraaye dasooyinkii galoole u kaceen caadhaadhato iyo maganba dhulkaasi dee waxa weeyaan waa ambadasadaa lagu dhex maydhaa inta biyaha la diirsado dee haddii fiidku dhace gudculi yahayna daaraddaad ku maydhan kartaa laakiin badanaa ma laha sida guryahan caadiga ah xamaamiyo kolkaa labadiiba guriga midba dasadiisii ayuu ku dhex maydhay xaadhaadhato weli kolkaa wax caruura male xaas buu leeyahay cumarna wax u badan wuxuu leeyihiin wiilkaa kolkaa magan run ahaantii sidaynu calaa kulli xaal magan xaadhaadhato kolkaa labisay suud yar oo kolkaa ugu jira shandad qiiqu dee dilay oo dee baaca suurkaa yare oo suurkuna kolley waqtiyada munaasabadaha iyo wuxuu xidhan jiray kolka looga yeedho caruusyada xaadhaadhato maganna halkan jinis yar oo kolka aabihii uu ciiddii kal saddexaad u iibiyey iyo shaarkiisii iyo kolkaa iyo koofiyadii iyo jinis is wata intayba jiq isku siiyeen ballanka waxay tegeen halkii uu agaasimaha waxbarashadu yidhi kolkay saacaddu tahay 3:00 magaaladiibay isku diyaariyeen halkii lagula ballamay kolkaa imika waxaa loo socdaa gurigii xaaji moodhow Boy
dhinaca kale gurigii xaaji mooge dabaaqiintii waxay ku mashquulsan yihiin raashinka la karinayo ee la diyaarinayo. weytaradu waxay udhadooda mudalabiintii ay diyaarinayaan dininka holkii weynaa ee lagu cunteynayay oo kubaayadihii sharaabka lagu cabayay si loo safayo, kuwii biyaha lagu cabayay si loo safayo, jabcadihii maraqa lagu cabayay dhinac loo dhigayo, tuwaaladii layskaga dhigayay cuntada ee halkaa lagu xidhanayay miisaska sida loogu safayo, sida loogu qurxinayo cuntada, floweriska dining hallka lagu cuntaynayo miiska weyn, sida bilaydhadii midba gaarkii iyo foogii iyo afmaraskii laysku duldhigayo. hawl cusub oo hawl ballaaran ayaa halkaa iyadu ka socota. dhinacan kale cabdi xaadhato ahaa magan adeerkii wuu train garaynayaa oo wuxuu leeyahy kolkaynu guriga tagno, kolka ugu horeysa waxaynu ku horeyn doonaa qeybta fadhiga. kolka fadhiga ayaaynu xoogaa halkaa sheekayno sharaab yar la cabo ayaa laynoo hogaamin doonaa guriga weyn ee dining hallka ah. waa kulley de anigu ma aragay waa qasri, kulley tijaartuna waa qasriyada waaweyn bay degan yihiin. sharaabka kolka laynoo soo dhigo fadhiga ee ugu horeeya markaaba hamoodsan buu yidhi, waa ceeboo kuleelku daaq ha noqonin ee kolba in yar caboo qolley si nafisa oo aad dareemaysid nafisa relagas samee buu yidhi oo aana eegine waxaana eegine fogaskaagu su-aalahana wixii lagu weydiiyo mooyaane wax kale ha ka jawaabi buu yidhi. kolkaa waa discreet buu siinayaa discreet oo nacam si aanu uga bixin dee anshaha. kolkaa wuxuu yidhi kolkay laynoo hogaamiyo dining hallka qolaba sidaasa la iskaga soo horjeedsanayaayo waa miis weyn oo safna dhinacaa ka jeedsanaya safna dhinacaa. hadiyo goor kolley number baa layna siin doonaa kursigaynu fadhiisanano. ha fadhiisan kursi aanad lahayn iska hubi buu yidhi, ilaa aada hubinaysid ha fadhiisan. waa taa cuntada bismillah ha odhan buu yidhi markaaba oo gacmaha la gelin ya sug buu yidhi. kolkay cuntada waynu bilaabanaa kolka xaaji mooga uu yidhaahdo bilow gacmaha bismillah kolkaa dhe gacmaha hala gelin buu yidhi shanta faloodo kolba dee sidaa ha ku samayn. waxaa foog iyo malqacada la isticmaalayaa buu yidhi iyo midi. kolkaa hilibka foogga sida loogu qabanayo kolkaa goosan buu yidhi in weyn oo cunuhu amba isku kaa taago amba matag meeshu yimaado amba saxashu. bahalka hangar jiifka la yidhaha halkaa lagu dhiganya halkaa iskaga xid buu yidhi dhag saanay cuntada iska ilaali buu yidhi cuntadu inay miiskaaga iyo dhulka kaaga daadato. afka malqaacadaada iyo hadday foog noqotoba ku qaad buu yidhi wax u qaadi kara afkaagu iyo aan kaa dhicin. kolkaa ha hadlin buu yidhi adigoo cuntadana cunaya amba sheeko ku qoslay afka isku qaba buu yidhi markaad cunisid ayaan la arkay. kolkaa traininga intaa leeg ayuu siiyey. bal casuumaddii markay bilaamato ayaynu qeybta labaad qeybta sagaalaad ee sheekadeena adigu iyo idhaaftaya balaayatinka dhowro aynu ku soo qaadan doonaa qeybtii 8aad. halkaasaynu ku joojinaynaa. la socdaa qaybaha dambe ee soo socdaa waa qeybtii 8aad.